ما شاء الله. ها والله شعبنا بالبلد متساحب. inta aanan furin xirmada dulucda warkayga marka hore waa sidee xaaladda cawayskii ee magaalada Muqdisho iyo ku dhiirashada bulshada ganacsiga iyo dukaamaysiga xilliga habeenkii ah. waxaan ku jiraa dadkii wadanka joogay muddadii oo kala duwan ee soo maray xilligan xilligii asliga oo ugu fiicnaa ugu amni badneed ganacsiga xilliga hadda wuxuu ku jiraa kobac fiican dadkii ku dhiiranayaan guriga qurux badan ganacsiga qurux badan iyo dadkuna waxyaabo badan oo danay jireen waa loo keenay marka ganacsigu fiican yahay شو قرهان وقت هبينكي جناحي هذا أدو في عينها وحرك كرت دنيرة جامعة أو بدكود أي قلت كود عن صدق إن جناح سمير وقت هبينكي سي مجالة كم عيد القارة وقرأ وصفع هبينكي جناح سي مجالة يومانك حتى لفت كده قلت دم حفظ صعد كمجالة تذكرني صباح عن مجالة قصاد ما شافت كان أنا قرهان دنيرة مركان هاي تذكر ما دويتها كيما أنا مقابلة كيما أنا حافظ وصينا إن أنا مجال جناحي كجرون نبضة كجرتو صعد مجال في عينها قف لقيا على سوق ملك الجو إنه أنت جوزك ضبط أما مثل مكرمة وإما جناحي قف كلو بنكوي بدي كان إنه حلاقيا وكاران وجناحي وفر يعني ما أنت مقدسه وحين خطي الدنيا دي لا ترتمسا علو مول وكلمتها كده كامل سنسو وحد من دبي إنها تشوفته أمني جناحي جا واسكفرني sababtoo ah hadaan amni la helin ganacsi ma soconayo marka uu si amni loo helo waa inay ganacsatada canshuurta bixiyaan dawladda la shaqeeyaan gobolka banaadirna ay la shaqeeyaan waa xilli dhexe oo habeen ah waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho qaybo kamid ah Muqdisho xilligan habeenkii xilliga aad doonto waa dukaamaysan kartaa haddii aad tahay ganacsadana waad ganacsan kartaa haddana waa ku soo noqday waxaan u jeedaa insha Allah horumar inay sameynayso dhinaca amaanka ahaado dhinaca businesska ahaado laakiin halka arrin rabo inaan ku baraarujiyo waxay tahay haddaysan dadka ganacsatada ah ee magaalada Muqdisho oo runtii laga qeyliyay aysan u soo jeesan dalka inay wax ka qabtaan oo wax ka dhisaan shilin dibad laga keenin laguma dhisi karo wadankan xoolo la soo bari international community keentan laguma dhisi karo waxa dhisi karo wadan waxa dhisa waa dadkiisa way ganacsatada marka waa inay lacagta canshuurta bixiyaan waa inay meesha ee alaaqal ay ku ganacsanayaan horteeda ay nadaafiyaan oo dhisaan oo hagaajiyaan nin walba meesha ku ganacsan aad iyo aad meel sare soo maraa magaalada waa nabad dadka aad iyo aad u ganacsanaa ganacsigana aad u wanaagsan yahay run ahaantii taasi ma jirto dadka ganacsigana aad u socdaa wax dhibaatana ma ku qabno ganacsigana uu horumarsan yahay ma sha Allah isha ayaa marqaati ah tani waa Muqdishadii muddo badan maqribkii laga xiroon jiray laakiin hadda maya waxaa jira goobo loo dhaclaysi iyo haasawo tago xiliyada habeenkii ah oo ay dhalinyaradu ku caweeyaan dhaylo la'aan caawa waxaan nasasho ku imid beerta nabadda sida aad u taqaanaan beerta nabadda waa meel aad loogu soo dalxiisa markuu barnaamijku kugu furan yahayna aad tahay meel maskaxda aad ku dibsan karto waxaan aaminsanahay waxay ka mid tahay xamar meelaha ugu dalxiiska badan ee loo imaado والله أمانك مقالة آدو سو كبسنا يا سيدي هرما أها سيدا يسيكي وناكسنا رجينا إن سينا قط إن شاء الله أمان جود مقالة مقدشو شنت سنة قدام بيسي آد بأسوها جاي ياسر أسوعدا أمانك أنت بدو في عيني دقموين كتضبي طبعا كأيكو أنت مقالة مقدشو ضدكو بيسوعدالان سيدي هرنا آدو في عيني أمانك مرك الله في ريو شنت سنة ولا صودا في وحي كوري كاد أنا وكفر حسنا ودن كيجا عن إمت oo loo maleynaa hamar sidaas ahaan oo ka maqanay magaaladan 3 sano oo haddana aan joogo 20 cisho oo farxad iyo wanaag aan ku imaaday aan ku faraxsanahay maanta wadankayga hamar aan joogo oo loo maleynaa wadamada kale laga cabsanayo Muqdisho lama tagi karo khalad ayaa u fahansiin wadamada qarbeed Soomaaliya aad ay u fiican tahay Muqdisho weyna fiican tahay ma sha Allah tabarakallah waxaan khayr ahaan kalma kulmin wadankeena waxaan ka rajaynayaa Ilaahay inuu noo fiicneeyo إلهي نو هجاجنو ودن كاغ wax ku dhaama male anagu xaruurana laga kaxeeyay maanta farxadani wanaagan ayaa halkan la soo kulumnay waxaa jirtay xilli aysan ku fudeen inaad u fiidsi tagto magaalada Muqdisho adigoo caafimaad qaba haddana haysta dhaqaale inkasta oo ay weli dadku dhiilo guud dhanka amniga qabaan haddana waxaa jira ciidamada dawladda Soomaaliya oo markii ugu horeysay lagu arkayo magaalada Muqdisho xilliyada habeenkii ah iyagoo mootooyin ku roondeynaya
magaalada muqdisho waxay iska bedelaysaa meelo badan waxaana kaa daliil u ah ganacsiga xilliga habeenkii ah iyo dhaqdhaqaaqa ay samaynayaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho cabdicays cabdullaahi maxamed cabdicasiil soomaali keebal magaalada muqdisho